قائلا بشهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأحبة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الناس وأبرهم وأسرعهم إلى الصدق والصدقات وأجودهم وعلى آله وصحبه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخوتي الأعزاء الكرام، وحام هذه إسكال ربي سبحانه وتعالى مكان كان آدكو قيمة بدن كسوقيب قلبكي سينا وافجيي هدف كحفلة داني الله أساسي أما اللو قنتي وحويا نبي عليه الصلاة والسلام إن لو وينيو إن جيل كاد سوكرايو وحاضر كالوحرو jiilkii hore u tegay oo saalifka ah waa in la isku xiraa bulshadan hadda nool iyo bulshada nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligiisa nooleed si ay noqoto bulsho waxaa la wada jir ah nabiga calayhi salaatu wasalaam si siman u weynaysa. culimadu waxay yiraahdeen xafladani waxay gundhig u tahay in jiilka yar ay soo koraayo qalbigooda lagu beero jaceylka nabiga calayhi salaatu wasalaam, in nabigooda calayhi salaatu wasalaam ay ka gartaan bulshada inteeda kale, in nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa rasuul ilaahay soo diray bashar rabbi subxaanahu wa tacaala u yeelay sifaadka basharka uu leeyahay, laakiin rabbi subxaanahu wa tacaala uu siiyey sifaad ka duwan sifaadka basharka ay leeyihiin. inay ogaadaan in nabiga calayhi salaatu wasalaam bulshada inteeda kale sifaadku uu kaga duwan yahay, in nabiga calayhi salaatu wasalaam xilliga uu noolaa iyo hadda uu dhintay inay waajib tahay si isu mid ah in nabiga calayhi salaatu wasalaam loo weyneeyo, in nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ka istaago jiilkan hadda soo koraayo maqaam aad u sareeyo oo qalbigoodu gaarsiiya in nabiga calayhi salaatu wasalaam isinkiisa markay maqlaan maqaarkooda oo jirracoodo. waxaad dareemaysiin bulshada caalamka ku nool bisha rabiicul awal markii la gaaro waxay u istaagaan weynaynta nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa, hadafkuna uu yahay in bulshadu ay ka garato bilaha kale bishaan rabiicul awal waxay u tahay. markii loo eego xagga weynaynta nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaa dihnigeena aan u celino 1400 sano ka hor oo aan gaarno xilliga saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay noolaayeen, waxaa ogaayeysaa xaqiiqatan bulshadan hadda nool in tacdiimka nabiga calayhi salaatu wasalaam dhinaca iska dhigeen. axad ma jirin bulshada islaamka ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam tacdiimkiisa waxaa leedahay shaki oo ka galo ama waswaas oo ka galo ama naqaa'is iyo waxyaabo nabiga calayhi salaatu wasalaam munaasab ah u ahayn in lagu tilmaamo inuu ogolaado. wuxuu leeyahay cumar, wuxuu leeyahay anas ibnu malik cafwan, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa asxaabtiisoo sidaan u fadhiyaan inuu soo baxaayo. anas wuxuu leeyahay falaa yarfacu axadu minhum ilayhi basara, qof dadkaasi bulshadaas ka mida oo araggiisa kor yeelaya ma jir nabiga calayhi salaatu wasalaam. maxay tahay? ijlaalan lahu, weyne nabiga calayhi salaatu wasalaam ay weynihayaan. liidana sayidina cumar ibnu khadaab wuxuu dhihi jiray weligeyga ishayda ma qabato qof nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ka jeclahay, wamaa kuntu atiiqu an amlaa cayniya minhu ijlaalan lahu, mana awoodin ishayda nabiga calayhi salaatu wasalaam inay ka buuxsato. lima weyneyn nabiga calayhi salaatu wasalaam aa weyneyahayo. markii nabiga bulshada u daahiro bulshadaasi waxaa qabaysay heebadda nabiga calayhi salaatu wasalaam
markaasoo madaxooda raariciyaayeen madaxooda ay raariciyaayeen sida xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam tilmaamtiisaba uu ku yimid oo ah idaa takallama atraqa julasaa'uhu kaannamaa calaa ru'uusihim itayr nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu hadlo oo bulshada uu la hadlo dadka julasada oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markuysa fadhiyaan waxay ahaayeen madaxooda inay raariciyayaan si aad mooddo madaxooda inuu shimbir saaran yahay xasiloonida waqaarka heebada waxaa leedahay ka dhoorsashada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka dhoorsahayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay oo geeriyooday jiilka saxaabada waxaa ka dhaxlay tacdiimku taabiciintii jiilka taabiciintu waxaa ka dhaxlay waxaa leedahay taabiciintii ilaa laga soo gaaro xilliga waxaa leedahay madaahibta ragga ugu waaweynaa waxaa ka mid ah imaam maalik culamada waxay wariyaan imaam maalik in dhowr waxaa leedahay iyo 30 ilaa 40 faras in loo hadiyeeyey markaasuu wuxuu u yeeray imaam maalik imaamu shaafici wuxuu ku yidhi imaamu shaafici ow fardahan la wareeg waa ku hadiyo imaamu shaafici markaasu wuxuu ku yidhi sheekhown u ahaa imaam maaliga sheekh ahaa wuxuu yidhi imaamkeygiiu maa la hartid hal faras oo magaalada madiine aad ku marto ilaa waxaa tahay qof caalim ah oo jaliil ah maxaa yeele imaam maalik markuu majlis fadhiisto 700 oo daaba majliskiisa kusoo xiri jirtay ayagoo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ka qaadaayo waxau dhahay imaam maalik muxuu ku jawaabay ilaah baa ku dhaartay waxau dhahay magaalada madiine oo jasadka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku jiro ma awoodi kari faras qoobkiisa inaa kula dul socdo أخوتي الأعزاء الكرام هذا وحا مرينا النبي عليه الصلاة والسلام إلا يرادو وحانا مناسب وين لغو تلمامو ساسين آين رقي علماء الدين تان إسلام كلا دحلي محو ليهاي مجلس أما وحا لنا بقعو جسدك النبي عليه الصلاة والسلام وكجرو مع وودي كريلا فرس قوب كيسينا كلا دول صعدو مع كميدا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام زهير وهو النبي عليه الصلاة والسلام نمو آد وجعل هاي وهو كنا ولا مقالة مدينة بادية هذا وعوصو هدية يجري النبي عليه الصلاة والسلام هديات النبي عليه الصلاة والسلام أصغن وعودي بجري هديات مركز وعودي يجري زهير باديتنا ونحن حاضرته زهير بادية دي نواي وعددك بادية نوجوغو أما نوحا نوجوغنا مقالة مدينة وحيدان علمضو مالما زهير وحوي من مقالة مدينة سوق إلى أصغو كجرة النبي عليه الصلاة والسلام مركز النبي عليه الصلاة والسلام زهير أصغو سوق التاغن قداشي سوكيمت مركز سان وقبتي وحسان لو قبها وزهير وحو قبها النبي عليه الصلاة والسلام واي مركز زهير وحكيري أرسلني من هذا ورقف يويدا وكما مركز وحو قرتي أذوق النبي عليه الصلاة والسلام ضرف كيسو دينعان وليحيي مركاسو عدانت النبي عليه الصلاة والسلام مركاسو وحودا يا رسول الله إلى رسول كيسيو يقول دقناو مركاسو النبي عليه الصلاة والسلام سيدا يقول دقنا وحو بالله بدود كيسا إنه كجل جلا النبي عليه الصلاة والسلام حوت كيسي مركز محودا النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وحوداي من يشتري العبد ورادون كان يجيب سايو أدون كان يجيب سايو زهير مركز وحكو جوابي إذن أجدني كاسيا
إلهي رسول كيس كاسدة إلهي رسول كيسيو هدادي بيعيسو واحد وغايسا أدون رقيسة أو قف كاقت هذا هلين وصوت كنت الماما مركز النبي عليه الصلاة والسلام أنت عند الله غال هذه إلى يكتيس وحاكوتاي قف غالية وحالي رب سبحانه وتعالى منزل إيه درجه أكتيس كله معكو غاليوي وجعلك النبي عليه الصلاة والسلام وجعلك النبي عليه الصلاة والسلام إخوتي الأعزاء الكرام هذا واحد مغليسا تحقير نبي عليه الصلاة والسلام على الحقيرة قف مسلمة مغلايو مركز قفك حقيراي وحالي ذا آمن سيئه وحلا الله يا أبواي وحلا الله يا أبواي نبي عليه الصلاة والسلام نغسي حقيرات دناء خصة وحاصو النبي عليه الصلاة والسلام وكوفنا وحيا عجيب كله والنبي عليه الصلاة والسلام أي كتل ما ميسو وحالي ذا أم سلمة iyadoo dhaheeso waxay leedahay nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa ay jaakada asaga uu xidhnaa markuu geeriyo kadib in bulshada anaga ku daaweyno xadiisku waxa laga wariyay Abdullah ibn Umar waxay u dirtay Abdullah ibn Bakir waxay dhahay Abdullah ibn Bakiro waxa dhahdaa Abdullah ibn Umar u tag waxaan ku arkaa saddex shay oo xalaal ina xarimaysid maxaa kamid ah bisha Rajab dhan in la soomo ina diidaysid su'aali markii loogu tagay Abdullah su'aali ka soo jawaabay wuxuu leeyahay Abdullah ibn Bakir waxaan u soo laabtay Umm Salama markaas waxay ii soo bixisay jaakad lagu xardhay diibaaj waxa leedahay qurux badan ay leedahay nabiga kaleey salaatu wasalaam iska leh waxay tiri Aisha agteedii aali jirtay jaakada markaas waxay dhaaday qofka anaga naga xanuunsado biyo loo gili jiray la sii jiray xadiiska muslim oo ku yaala xadiisku wuxuu ku yaala saxiix muslim wax qof muslima oo waxa leedahay raadinteedu waxa la dhibaato u marama xadiisku muslim oo ku yaala waxyaaba nabiga kaleey salaatu wasalaam saxaabadiisa aad ugu weynay jireen waxa kamid ah tintiisa waa tinta hadda anaga aan leeyahay cayaana ku jiro tinta nabiga kaleey salaatu wasalaam manzila aad iyo aad u weynay ka taagneed waxa la yiraahdaa Muawiya wuxuu kamid ah dadka waxa leedahay khulafada oo soo maray diintan islaamka oo madaxweynayaasha islaamka ka mid noqday markii wafaadkiisa la soo gaaray wuxuu dhahay kaalaya wuxuu yiri maalinka Xudaybiya waxaan ka helay tinta nabiga kaleey salaatu wasalaam qayb ilaa Xudaybiya waxa la yiraahdaa waxa la qeybshay tinta nabiga kaleey salaatu wasalaam waxaan ka helay yiri qaybta aniga aan ka helay tinta nabiga kaleey salaatu wasalaam keeda ii tahay makaankaasi ku jirtaa ila imaada marka dhinto faydaamitu marka dhinto waxa sameeyeen oo waxa ku cubtiin sanqaroorkii afkeegi wuxuu leeyahay tinta nabiga kaleey salaatu wasalaam shimeel la xiiray waa Xudaybiya waa intaan la furan maka inta la furan makana waxa la furtay qarnigii 8aad ee waxa la sanadka 8 hijriga la furtay waa xilliga tintaalay oo keedaystay oo leeyahay marka dhinto afkeega hal gelisankiga hal geliyo ilaahay idinku dhaarshay tintiina marka soo jartaan afkiina mu awoodin raashin maanta dadin ku aragna saayelna asadana la kala taga muxuu leeyahay afkeega hal lagu cubo sanqaroorkeega hal lagu cubo marka dhinta la geliyo muxuu ka raadiyaa ma taqaana inuu ku badbaado tintaas hadda waxa leenahay ayaana ku jiro soo wax falxum Soomaa soo wax in waxa leedahay dhageysigo la diido Soomaa soo nabiga kaleey salaatu wasalaam in loo arko Soomaa inuu taagan yahay maqaam ahad khalqi ilaahi kamid oo san gaarin akhwati al-aizaa al-kiram iska dhaaf hatta nabiga kaleey salaatu azadiis markii la gaaro jismigiisa hadii laga soo tago ismkiisa lagu barakooba waa magaca nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis imaam suyuudi kitaabkiisa al-khasaa'is oo ku soo guuriyay oo leeyahay aniga cindi ala shard al-hasan wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu dhahay man wulida mawlud qofkii loo dhalo cunug fasamani markaas ugu magacaab riwaayad kale fasamma muhammadan markaas muhammad ugu magac dara hubban li wa tabarrukan asagoo aniga jecel magiciigina barakeysaayo asaga iyo waxa leeyahay wiil kala dhalay iyo waalidkiisa jannada u geeyo nabiga kaleey salaatu wasalaam rabbi subhanahu wa ta'ala jannada u geeyo waa magaciisa kaliya xadiis kale wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam laga wariyay saddex famil kuma soo biiro saddex oolaada oo wiilal ah saddexdoodana waxa leedahay aan lagu magacaabay nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaa wuxuu dhaqay jayl aabaha sameeya saddex oolaad rabbi subhanahu wa ta'ala uu si mid kamida Muhammad aan ku magacaabin wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam qad jayl qof jaahil oo noqday muxuu raacsi wuxuu dhahay tusammuna awlaadakum bismi
ثم تلعنونه وحال هاي أولادنا واحد كم مجعابيسين أنا مجعي كدبنا ولا عنا ديسين علماء محي جارسين وحي دهان اسكت حتى النبي عليه الصلاة والسلام إن نقصي تحقير الجليه حتى اسم كيس التحقير دي الجليه دين سلام بناك اللي جوجا هذا أنا مركي بارك العلماء حال صنيع إن فران الله ليف صومه وحي دهان ليف كفروه قف يقانو إن السنة تاي هدي أسقو ليدا أو يرا سنة ما دين سلام بناك كجوجا هدي قف فيرق ليرا هذا ورنيه أمي تاي لا تقرأ ولا تكتب وحنا ما أغري كرت وحنا ما قري كرتد وحبرو هدي أو يرا النبي عليه الصلاة والسلام أمي وأها أصلا وحنا ما أغري كر وحنا ما قري كر هدو يرادو أسقو ولا جد حالة دي سين وحالة النبي عليه السلام كم مثاله أصلا دين سلام بناك كجوجا في روحياوي يروي دو على دي دايد فرل فوق سنة ولا حقيرة دين سلام بناك اللي جوجا النبي عليه الصلاة والسلام وحال هاي تشبه لغو سمايو مثلا النبي أمي وها وحال كقف كحالتي سو كشبه دين الإسلام كبناك اللي جوجا إن دات النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة محمد ملائكته أخوتي الأعزاء الكرام صحابة النبي عليه الصلاة والسلام النبي منزل آد وين وكتاجنا ديد كان هذه قداء ما تناطر ترى ما حودي ذا متقانا جسمي إنه أنتي سكلا جارو هدو تيسو أورا سما ما الله ترترى ديد هديك ما هو ترترى هدو دفع عمر ديد وجار هدو تيسو أورا تاس أو ترترى النبي عليه الصلاة والسلام مركو ساس ديد وي ما ذنه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسجلين مركز وحالة أي اسكو دي بيجرين أنا سوحولي النبي عليه الصلاة والسلام قرينو إماجري حليل الظهر مالي مو يمد هويدا إذا سوقكم قنتاي مركز سوحو كجيفته مقار وحالة هاي حوجا قد له مركو جيفته والنبي كل هذا ديد ذا كداي ديد كداي وحو بالله إنه وحالة هاي جلايو ما لا ير دول هويدا يتمد تري مركز وحي تمد قري أسوء الأود جاي مركز وحي بالله الله إيه هاي ستي ونايا اسكو عتريان إن النبي عليه السلام ديد كيسو كجرته ديد كينو كجرته مركز النبي عليه السلام كسو كعي مركز شعور الصلاة وحالة الصلاة محاسمة يسا مركز رسول كيسيو ديد كاج بركدي سارجينا مركز سورة صبت واسيبت معي تري ديد كاج بركدي سارجينا أصلا محوق جواب أصبت واسيبت أخوتي الأعزاء الكرام حق الله نوافجيو وقتنا هذا أكوبي هاي ماشونو ميل كويلا واي مشايخنا واجوكتا أنيقو وها سو دويه ما دام علماء دمنتاي علماء كلا سوغايو كلمتي ku aadaneed احتفالك النبي عليه الصلاة والسلام كدعايا مدرسة مع المسلمين على الديري وحالة حافظة على القندع قاران دقمة شبه سلكا سوكو بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله